ورنا تلفكاga ku qaado bows aad iyo aad u qurux badan ama sawir steelkiisu aad iyo aad u qurux badan yahay balse aad garan lahayd qaabka aad u dhigran lahayd iyo qaabka aad u hagaajin lahayd aad uga dhig lahayd sawirka ugu macquulsana taasi dib ma leh haddii aad daawatid muuqaalkan waxaan ku kula wadaagi doonaa qaabkii aad u dhigran lahayd ama u qurxin lahayd sawiradaada adoo isticmaalaya waliba telefonkaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام صاحبي الملك السادون كاد كجوكتين كسولو هذا يوتيوب channel كينا ومركل يوم مقال عصب وأنا جا محمد جامع سدو كريتيف كذا ونسيت ومهمتج وأنت مقالكم كدوية مقالدين هوري إنك سوق بنتري يوتيوب channel مقالدين هوري وحي عن شرين وحكو سابسن تاتش قبل ما أنت مقالكم وحن كلو داك دونا قاب كادو داك فوتو إديتين رانت مقالكم وحن نقص السمية وحاجتين ممكن لقى بحي in lagu edit karaysto computerada iyo camera-inka lagu qaado sawirada. maanta muuqaalka waxaan ku wadaagi doonaa qaabkii aad telefonkaaga sawir aad ku qaaday aad ugu edit garan lahayd wali isla telefonkaaga adigoo isticmaalaya talaabooyin kala raacay iyo hal application oo aad soo degsato ay kaaga xiran tahay in aad ku edit karaysid sawirkaaga. marka maanta muuqaalkan oo kula wadaagi doonaa waxaan ku leeyahay daawasho wacan. fadlan subscribe saar ufka gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba oo aan soo gelino YouTube channelkeena. waxaan rajaynayaa inaad ka heli doonto muuqaaladan soo gelino. marka ugu horreysay aan rabnay inaan sawir edit garano aan ku qaadno telefonkeena aan ka saarno sawir qurux badan waxaan u baahanahay programkii inoo fududeyn lahaa inaan sawirkeena qurxino. marka haddii aad u baahan tahay programka waxaa kasoo degsan kartaa description-ka hoose muuqaalkan ama waxaan gelinaa Play Store-keena kadibna qaybta searching-ka waxaan ku qoranaa Lightroom. Lightroom markaan ku qorno waa aragtaa inuu soo baxay marka korkiisa ayaan soo taabanana hadda arto waad u jeedaa anigu waan install gareysan yahay balse adigu waxa lagaaga baahan yahay inaad install gareysatid kadibna aad soo dejisatid markuu qaabka kuugu soo baxo waxaan taabananaa open. markuu open aan raano ugu horeynta wuxuu nooga baahan yahay inaan gelino aan ku xidhno ama Facebook-geena ama Gmail-keena ama isaga dhexdiisa aan ku sameysano account ka sameysano si aan ugu xidhiidhino. markaad account-ka iyo waxba ku soo xidhisay haddii aad u baahan tahay qaabka loogu xidhiyo waxaan ku soo dhigi doonaa calaamadda sare kaarka sare xaggan ka soo bixi doona. marka xaggaas ayaad waxa ka dooranaysaa aad ka soo daawanaysaa qaabkii loo sameyn lahaa. markaad soo dhamaysatid programkan dhexdiisa kama soo dooran kartid sawirka rabtid inaad edit gareysid. marka ugu horeysa waa inaad tagtaa gallery-gaaga markaad rabtid inaad tagtid kadibna waxaad tagaysaa sawirka aad u baahan tahay inaad edit gareysid kadibna waxaad leedahay share. markaad soo share gareysid kaliya waxaad taabanaysaa waa aragtaa qaybta waxaa naga soo baxay add to Lightroom. marka Lightroom-ka korkiisa ayaan taabanana anigu hadda hadda qoraal buu halka inooga soo saaray wuu inoogu daray albumka waxaan ku daray Lightroom-ka. marka sidoo kale waxaan soo furan doonaa Lightroom-kana markaan soo furno waxaan taabanaa meesha footooyinka ay ku qoran tahay waad aragtaa sawirka xaggan ayuu inoogu jiraa. marka sawirka waan edit gareyn doonaa balse telefonkana hadda wuxuu u taagan yahay portrait. marka waxaan ka dhigi doonaa landscape si aan idinkuna wax badan uga faa'iidaan si wacan idinku muuqdo. markaan kasoo dhigano kaliya waxaan soo taabanaa sawirka aan rabno inaan edit gareyno korkiisa ayaan taabananaa. sawirka markaas aad u taabatid meesha ugu horeysa aad tagaysid waxaa noqonaysaa talaabada calaamadan yar inaad tagtid calaamadaas ayaan tegaynaa. kadibna markaan aan tagno qaybtan ay ku qoran tahay preference ayaan waxaan dhiganaa hoos geenanaa. qaybta marka hoos geeno sidoo kale qaybta ka hooseysa saturation ay ku qoran tahay iyana sidoo kale hoos ayaan geenanaa. markay qaabkan ugu tahay marka waxaad u jeedaa halkan sare inay ku qoran tahay mix meel ay ku qoran tahay. marka meesha mixka korkeeda ayaan taabananaa. meesha mix korkeeda marka taaban waxaan tagnaa color-ka cagaarka ayaan dana korkiisa taabanana. color-ka cagaarka hoose marka taabatid qaybtan ay ku qoran tahay saturation-ka ayaan hoos u dhiganaa. sidoo kale luminance-ga qaybtan ayaan hoos u dhiganaa. si aan qofka color-kiisa u soo celino waxaan tagi doonaa color-ka ugu horeeya kadibna qaybtan ayaan durkin doonaa. sidoo kale qaybta ku xigta saturation-ka ayaan xaggan yana wadi doonaa. kadibto waxaan sameyn doonaa qaybtan ku xigta color-kan ku xiga ayaan tagi karnaa isna korkiisa kadibna waxaan hoos ayaan u celinaa kaana sidaas oo kale hore ayaan wadanaa. hadda color-kii sawirka qofka inuu soo muuqday waad u jeedaa. marka sidoo kale qaybtan waxaan sii tagnaa qaybta ku sii xigta qaybtana sidaan oo kale ayaan odhan.
markii saan ugu soo baxdo waxaan taabanana meesha ay ku qoran tahay done qaybta ugu horeysa ayaan taabanana kadibna meesha ay ku qoran tahay u sareysa temperature ay ku qoran tahay ayaan yar xaggan u wadana markii qaabkan ugu soo baxdo yani wadaagta sawirkiin wax badan iska bedeleen backgroundkii dambe oo cagaarka oo dhan inuu isbedelay wadaagta kadibna waxaan taaban doonaa yani qaybtan ayaan sidan u wadanaa meesha u sareysa ay calaamadan yar ayaan tegi doonaa calaamada markaad tagtid sidoo kale koonahan kale waxaad ku aragtaa calaamad plus marka calaamada plus ka baysleynayna taaban doonaa marka saddexdan option baa ku soo baxay waxaad dooranaysaa ka dhexe marka qofka yani waxaan saarnaa qofka wajigiisa inta u saarno yani baa soo weynaysa ilaa inta qofka wajigiisa iyo jirkiisa ka muuqanayso kadibna waxaan taabananaa meesha ay ku qoran tahay calaamadaas ayaan teginay qaybtan ayaan xaggan u kordhinaynaa qaybtaas u taabano sidoo kale waxaan tagi doonaa qaybtan lightka ay ku qoran tahay meesha contrast ay ku qoran tahay ayaan kordhin doonaa sidoo kale exposure-ka ayaan yar hoos u dhiganaa markay saa tahay waxaan leenahay calaamadan saxda halkan ku jeedid ayaan ku dhufan doonaa yani qaabka markaad aragtid sawirkiin wax badan iska bedeleen hadda yani markaan rabno inaan sawirka kiisii hore kan isbarbar dhigno dhexdiisa un ayaan sidaa u haynanaa yani wadaagta sawirka hore siduu ahaa markii dambena siduu noqday waa dareemaysaa farqiga u dhexeeya waxaan rajeynayaa inuu sawirkan qurux badnaado sidoo kale waxaan tagnaa meesha calaamadan ay ku qoran tahay lightka ka contrastiga kor ayaan u qaadanaa sidoo kale exposure-ka in yar hoos ayaan u dhiganaa markay qaybkan ugu soo baxdo markaa sidoo kale haddana waxaan leenahay waxaan tegaynaa calaamadan kale ayaan tegi doonaa calaamadan markaan tagno kaliya hal option ayaan hoos u dhiganaa meesha ay ku qoran tahay finite ayaan hoos u yar dhiganaa kadibto hadda sawirkeenii uu dhammaystiran yahay waad aragtaa qaabkii hore siduu ahaa iyo hadda siduu noqday si aan u saf garayn waxaan tegaynaa calaamada sheerta meesha ay ku sawiran tahay ayaan tegi doonaa calaamada markaan tagno waad aragtaa halkan waxaa kusoo baxay save to your device marka optionkaas save to device ayaan taabanana waxaan rajeynayaa markaa inuu inoogu dhici doono yani galerigeena yani waad aragtaa sawirkii galerigeena ayuu inoogu soo dhacay isagoo soo bedelay aan sidii horan ahayn waxaan rajeynayaa inaad kasoo heshay muuqaalkan qaabkii aan u dhig garan lahayn sawirka aad soo aragtay adna ka faa'iideyaan rajeynayo in badan oo idinkeeda ka mid ah inay yani ay ka faa'iideen muuqaalka waxaan isleeyahay haddii muuqaalkan uu gaadho yani likeskiisu ay farabataan ilaa 100 like ay gaadhaan inaan kasoo sameyn doono qaybo fara badan oo photo editing-ka waliba teleefankaaga sawirro kuwan iyo kasii qurux badan qaabka aad u garan lahayd iyo farsamooyin badan sida retouching-ka oo kale يعني وجهان qofka yani finka kaga yaalo kale inaad ka baabiisid marka maanta muuqaalkan intaas ku saabsan yahay waxaan jeclaanayaa inaad subscribe saartay channelka sidoo kale like saartay commentina insha Allah ka soo bixi share tanadan ku galay assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh